maamulka degmada Kismaayo ayaa maanta tababar u soo xiray dadka ka soo jeeda tuulada Buulaguduud ee waqooyiga magaalada Kismaayo iyadoo tababar 5 cisho ugu soconayay hotelka Tawakal ee magaalada Kismaayo iyadoo tababarkan uu soo agaasimay maamulka degmada Kismaayo. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timjir iyo sidoo kale ku xigeenkiisa waxaana dhamaantood ay ugu baaqeen dadkan in ay ka shaqeeyaan ammaanka iyo sidoo kale sidii markaasi ay u wada noolaan lahaayeen iyadoo gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo uu dadkaasi u sheegay in deegaanadooda laga hirgelin doono horumar kala duwan oo ugu horeyso adeegyada bulshada. waxaa farxad noo ah inaan maanta reer Buulaguduud wada joogno kulley waa dadkii intii laga soo xulo hormuudka u ahayd way ama maamul ha ahaato ama ururada bulshada dhalinyarada iyo haweenka dhammaantiin soo sidaa ma ahaydin soo dhawaada horta waxa waaye waa ku faraxsanahay runtii in halka seminar la idinku qabto inaad wax ka barataan inaad maaragtay degmadiinii iyo idinku isbarataan iyo dadweynihiin waa ku faraxsanahay waxaan filayaa inay muddo hadda xoogaa ka hor inay suuroobi jireen arrintaas laakiin maanta waa suurowday madaxdeena ciidamadeena mas'uuliyiinteena iyo reer Jubbaland baan ugu mahadcelinaynaa oo jaaniska ina siiyay inaynu maanta halkan isugu nimaadno oo tababar iyo seminar iyo adduun ka hadalno waxa weeye marka insha Allah waa idin mahadcelinaynaa idinkana insha Allah waxyaabaha ku xiga waxay noqon doonaan in tuulada loo sameeyo xaruntii laga maamuli lahaa oo maamulku fariisan lahaa in nalal solar la geliyo magaaladu ay habeenkii ifto in iskoolo iyo saldhig boolis iyo laga sameeyo waxaas oo dhan ba hadii aan leedno wadada ku soo jira. alxamdulillahi rabbil aalamiin thumma salatu wa salam ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa dadweynaha reer Buulaguduud bahda suxufiyiinta dhammaan dadka isugu yimid seminaarkan waxaan leeyahay insha Allah ta'ala waan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. bacda salaam maanta ay taariikhdu tahay 5 bishii 11 2017 waxaan halkan ku soo xireynaa seminar muddo 5 maalmood ah ka socday hotel Tawakal oo ay degmada Kismaayo soo qabanqaabisay loona qabtay tuulada Buulaguduud bulshadeeda kala duwan insha Allah ta'ala seminarkaas oo ku saabsanaa isdhexgalka bulshada iyo dawlad wanaaga waxaana seminarka soo qabanqaabiyay maamulka degmada Kismaayo insha Allah ta'ala waxaana loo qabtay dadweynaha reer Buulaguduud. sidoo kale waxaa tababarkaasi ka mahadceliyay qaar ka mid ah dadkii markaasi tababarka la siiyay waxaana ay sheegeen waa idin salaam dhammaan intii bariga oo waxaan ka soo qayb gashay seminaarkan intii soo abaabushay waa mahadsan yihiin dhammaan annaga seminaarka waa ka faa'iidnay aad iyo aad ugu faa'iidnay macnaha waxyaalo fara badan oo aniga aan ogeyn amba aan ka seenin ayaa naloo sheegay maxaa jira annaga haday baadiyaha iska joogno tuuladaas baadiye leeyahay baadiyahaas aan iska joogno dawladdu ma ka warqabo al-shabaab aan ku gumeysiga al-shabaab hadda aan ka soo baxnay dawladda anaga bixis alxamdulillaah rabbil aalamiin hadda seminar ay noo furtay seminaarkiina waa ku mahadsan yihiin. isfahamka bulshada waa horumarka dalka waxaana markaasi magaalada Kismaayo si weyn maalmahan uga soconayay kulamo kala duwan iyo tababaro la siinayo dadkii ka yimid deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo ee laga xoreeyay kooxaha nabaddiidka si markaasi dadka deegaanadaasi ku nool ay u noqdaan kuwa markaa ilaashada nabadgelyadooda. aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.